jaahil nimo iyo alla ka cabsi la'aan baa dulmi dhasha dulmi waa wuxuu dhalaa qabyaalad baa waxay dhashaa qaran la'aan qurux la'aan qaynuun la'aan qorshe la'aan qadarin la'aan isqabad la'aan moogta qas iyo qalalaasta iyo qawrac iyo qax iyo hoog iyo boo dhan bay dhashaa haye maanta ma ku jirtaa nin weliba adeerkii saalim ah oo tuug ah oo siyaasadda ku jira ma u khudbeeya yidhaahda waxaa nala ka dafay waxaa naloo maleeyey waxaa naloo quuray intaa taa ku jidhaanna wallaahi bilaahi tallaahi waad hoogaysaan oo waa ba'aysaan oo waa jabaysaan oo inaynaan qaran helayn oo qiime helayn oo qurux helayn oo qadari helayn ma ka baxnaa waxaad tihiin aqoon-yahan maahidina waxaad tihiin akhristayaal kuwa brofesorada idiin ahayna waa akhristayaal waxaa ka maraga wuxuunbaa abuuri lahaydeen mujtamacaan maantay danu ah dhibta ka saara waa ay xarag horaystaan soo farfadhidaan waxaa maalin walba dhegtiinnu maqlayso ishiinnuna arkaysaa waa inta kamana dagaalamaysaan oo idinkaan u dhalinyara ah haye kuwii xoreeyey baa idin laaleekaa aqoon ma lahayn baabuur ma lahayn guryo ma lahayn lacag ma lahayn facebook ma lahayn youtube ma lahayn twitter ma lahayn haye jaamacada kama bixin haye seerabtaan ii sheega seerabtaan barnaamijkan caawa waxaa marti noo ah oo halkan ila fadhiya shakhsi runtii ku suntan door lixaadana muddo badan ka soo qaadanayay ilaa haddana ka qaata suugaanta dhinacyadeeda kala duwan hadday noqoto curinta ereyga masraxiyadda qaabihaysidda ayaa sidoo kale macluumaadka tabinta kolba wixii bulshadu ay markaasi tuhmayso waa awaan cabdiqaadir cabdi shube wuxuu ka tirsanaa kooxdii horseed xilligii dowladdii dhexe kooxda horseed oo ahayd kooxdii xoogga dalka wuxuu ka mid ahaa abwaanadii kala duwanaa heeso badan oo caana riwaayado iyo sidoo kale gabayo iyo maansooyin kala duwan ayuu xilligaasi uu sameeyey oo ilaa haddana la dhegaysto kooxdaasi rag culus oo badankooda aad taqaanaan axmed yaasin digfer iyo axmed nuur jango iyo xabiib muuse milana iyo dadkaasi isku koox ahaayeen sidoo kalena uu ahaa abwaankooda bal suugaantu doorkii qaadan karto nabadda iyo kolley nabadayn hadday noqoto qofba dhinac buu ka taagan yahay aragti buu qabaa laakiin tan ku salaysan suugaan sidee bay uga qaadan kartaa nabad u dhalin kartaa colaadna u damin kartaa taa beddelkeeda qofka suugaanyahankii sidee buu colaad u kicin karaa waa iyaduna ku jirtaa meesha tusaalayaal nool ayaynu soo qaadan doonaa runtii hadda baahida taagan oo maxaa isbedelay ma xilliga horun bay suugaantu ku koobnayd oo talow colka jooja la dhihi jiray mise hadda haddii suugaantu ay laba beelood ama beelo isdiriray heshiisiin jirtay colaad siyaasadeed sidee bay suugaantu u heshiisiin nabad uga dhalin kartaa sidee dadka hal abuurka ahi ama abwaanada ahi nabadda halkay ka taagan yihiin hadday iyagu go'aansadaan bismi illaahi raxmaan raxiim horta abwaan iyo hal abuur waa laba ilmo adeera abwaan xataa anigu ma hubo inaan ahay laakiin soomaalidu ay ugu yeertaa waxaana laygu daray raggii abwaaniinta ahaa anuu jiray 27 caawana waxaan jiraa 65 fankan waxaan ku galay 19 marka 19 iyo 65 kala jara saaxiibkay isagoo raba inuu gabdho badan baa meesha jooga iyarayo wuxuu yidhi muddo 40 sano war 40 ka badan uma dhawaa suugaantu waa eray Soomaaliya waa geedaha hara jiilaal horaameedka markii geeduhu gamashiyaan yaraadaan inta badan ay caddaato xilliga dabaysha xagaagu xoog u dhacayso example bisha June oo kale awaladeeda geedaha kobaha ku hara dhirta geeda la har kale
sida dankuuga iyo garamacayska iyo dhumaga iyo geesiriyaadka iyo dhirta geeda lahar kale dhul kale baa ninka sahmiyey wuxuu yidhaahdaa meeshaasu suugaan bay riyaha u leedahay cawskuna waa xadaari reerka hala raa la yidhaahdaa tixda waxaa loo siiyey suugaan halkaasay ka soo jeedaa waa waxa suugaan noqda murtida u harta mujtamaca soomaaliyeed 1,000 sano 2,000 sano 100 sano iyo wax ka badan la nafacsan karo baa markii la qiimeeyo la dhageysto waxa la yiraahdaa tan waa suugaan maantana inta lagu caytamo dadka la isku diro wixii la doono lagu hadlo waxa la yiraahdaa abwaankii weynaa iyo marka dhanka suugaanta markaas heesaha garanaysan la keenaa iyo gabayada garanaysan eeg dib u fikira wixii naga baasan waa inaan wanaagsanaano suugaantuna nabadda waxbay ka tartaa oo mid la tiriyey 600 sano ka hor ama 100 sano ka hor baa maanta anfacaysa mujtamaca Soomaaliyeed hadday fahmaan sidii uu u yiri Cabdullaahi Suldaan Timcadde ilaahay naxariistiisa ka waraabiyay dadkan la hadlayaa baan lahayn duxi iyo iimaan aniga iska daaliyay dhagu uma daloolaan dul iyo hoosba waa ugu dhigay oo waa dix dhagaxeed bal inay dalfoof tahay aqliga dooni laga saaray wixii horay u soo daashaday bay degashanaysaa dugsi male qabyaaladii waxay dumiso mooyaan eg dugsi male qabyaaladii waxay dumiso mooyaan kelmadda bay ku dhantahay xalka Soomaaliya maanta in la fahmo sababtoo ah innaga dhib kale inama hayso nin dawcado oo qabyaalad adeegsaday baa meesha ina dhigay ma beentayba ya qabyaaladda maxaa dhala qabyaaladda dulmiga dhala wuxuu ways dhashaa ya jaahilnimo iyo alla ka cabsi la'aan baa dulmi dhasha dulmi waa wuxuu dhalaa qabyaalad qabyaalad baa waxay dhashaa qaran la'aan qurux la'aan qaynuun la'aan qorshe la'aan qadarin la'aan isqabad la'aan moogtahay qas iyo qalalaasta iyo qowrac iyo qax iyo hoog iyo boo dhan bay dhashaa haye maanta ma ku jiraa maxayna ka saari kara ya insha allahu yay waxayna ka saari karaa allah weynay ina abuuray waxaan uga bixi karaa ya anaa huba waxaan hubaa Soomaaliyeed ya intii shalay lagu halaagay haddaan ka haro ilowno qabyaalad haddaan halmaano haddaan midnimo u heshiino hogaankeenana adeecno rabbina aan hiil ka dalabno inaan dhaqso horu marayno ayaan hubaa oo wallah haddaan ilaahay aamino oo ka barino inuu na hagaajiyo oo ka barino qulubteena inuu isu dumo ya oo hogaankeenna madaxeed ideeyadiisa fiican oo toosan raacno tuu ku khaldamona si qurux badan ugala talino halkan annaga waxay nala tahay saasaa ka fiican waxaan qabaa si degdeg inaan u horumarayno oo weliba horumarkaa anugu calaf kuma lihi sababtoo waa idiin sheegideeda 65 waxaa ii hari karaa maalmo dadkaan u dagaalamayaa waa idinka waa carruurteediiyo kuway dhaleen oo idinkaa haye haddaa ila fahmi weydaan waa khasaaro waxaan rabaa inaan tixahayga caawa idinka bilaabo 1983 bishii maarso 8 gabagaan tiriyey oo la yidhaaho sifaalo waran ya idinkuna khatimo 2018 bishii May tixdaan tiriyey inta u dhaxaysana wax idinka tuso marka waxa ka fikirtaan siday isu xirayso siday u tahay filin la daawan karo muxuu yiri 83 bismillaah bismillaahir rahmaanir rahiim gabaga waxa la yiraahdaa sifaalo waran indhoweydba siinleyda gabay waanigaan sixine waataan ka saahiday
بريهان تانسي فين جري صدح بقول سقاشن يكو صدرهم مانسو وأن دمان ساهبي أو وضع ستاعيسان سويالك الدنيدان بلان كسفارض هاي بلان سوق حقيقي يرونتو سهن كديريستو سادال ساسان سورة إيا ساعس إيا ناول إن كستو سبحان كي أجي هاي سدو أهان دونو بلان سامي قو قيبيو وسان كقبو شيغو سؤاشان بلان أميها سامع كغيرو سومالي قبيجيد بلان صوت كان مغشيو بلان سعوف الدين له إيا نين قبي سلوبة قارسيو سبان إيا السبان إيا إنتي صوما لغا قارو markii saan cadaalaha la yiri ama samaanuuxba sadar qoran intii aan ka helay ama u soo joogay ama seen cadaab boqol jiri sida yahayd sheegay Soomaaliye sahan yimi ma dhicin saaka kooro siyaabaha la falayana waa si aan haboonayn waa samiye khayraad midaan saawo ku lahayn waa siririntii niyo dhib iyo sili cibaada ah samhariira waa mida ku tagi sida xaqiiqda waa sumuc naareed mid aad ugu siqaysaane waa midu sujuud kala dhaca sawrac diin leeyahay anuguna markaan saa u deeyay soogsadoo kacay sugi waayay waxa soo socda iyo saaca ii baxay sawaxankayga dhacaya baad ka garan siirka aan nahay ummad yahay allaha noo sahlay wayna sida taay su'aal nuxurli Soomaaliye hooy waa sidane seefta iyo hubka iyo saanada iyo sumuc liishan intaan saajicin iyo kulan siqiga beesheena sokeeyaha intaan subax bareer sulufka oogayno shisheeyaha maxaa naga sabahay yaa la sabadeena maxaa gaalkan saganteena qaba idinka soo jeedshay sidii eebahay yiri maxaa loogu socon waayay subxaanallah maxaa faranjigan lala sadqayn waayay seeraha dhulkoo idil maxaa looga sugi waayay maxaa soohdintii guray ku furay loogu simi waayay saldano waa wax fiicane maxaa loo samhalaleeyay saleel iyo maxaa idinka dhigay saaxiibku xoog leh ya saaxiibku xoog leh Soomaaliye wali sidii baa tahay maalinta ka hadlayay hay saleel iyo maxaa idinka dhigay saaxiibku xoog leh xubnaha sifeeye oo ka sugaysaan gad iyo qaale sarbay oo salaan iyo u dhigay saari iyo raare ku sifeeyay meeshaan la rabay sadaradeedii saada kalena xeesheed balan socod subaxsiyo Soomaaliye waqin ma aragtaan sida dantiinaay sal waxaan lahayn iyo xumaan kama saqaysan waliga waxaad saacidaa saaxirku olay kii samaha kula doonaya baad sibirta goysay saradii dhexdiinaana ووصح الله ضربتاني سفينة دمع ويسوق دشان لبس بيناده هديش الصوف كعدو كالتوجو صومد إنسان سيدا وحنا وياهي من رجساك وقرني صوابك يدمنها يبلان سبي كانوا شاقو ماشان كسول حي بلان أجو سلسيو ترى سهل له سوقان نحوله بلان صواب سيو سفر دورة وأنا ركي والصبي وين إذا والسبن كمان تجرو إلى السلون هذه أو ذا استلجحن وعجبه بلدين صاف كو إنك السبن بارد هرون سوقن لا أبادي صار يوح وحوض عدلا وقصر الاستابة صدق وح قد شو عمناها دبس ضيحابة ماشي سفار له يوح بعد وصهن شابة صبح ذو كالكاد قالوا أيو سلب أرور شاي صدح جلق لعون ديره بوصل يقطعي صهد عيلك قرت من قاب صعد كسوقرتو سامانك يوح الله مرا يلك وسدي در لسانتي بوح ديغا كالين ساهبني وحو ساوي الشبال وقص النارابة سوجيت كدولك وحو سعبك قويابة مركي سانتو داشبة وحو جيب سلسليابة قرتو انتو وح كسمو سببك وبعشو قبل كو سميري بوضر دو قصاراي هبينكا هرددا كمست الليمو صوب الفيجي ثقاف وبحتراره وحسينك عشابه سقسقتي وحجيرنك يسلك الجيراوه وحي صولشيو لبدا لو وضحضو صيرتابه صبح دي قرارعيه دال وحول الصحابه
sidaa wuxuu ahaado oo dhibta ugu sarriigtaaba beriya saadamay dhalin wuxuu saabka ku hayaaba sanku riixa xoorkii wuxuu sii qadariyaaba markuu seer mawadiyo ku furo sagal guya horay oo ay horaadada siinto oo dhaysta wada saarto iyadoo siteedii go'ay ee sana habeen dhaaftay haddii subax la weeraro gobaad waa rag sababtiisa samaaday haddii lala tago oo saraha loo jiido iyadoo sidkaha dhalay nilgaha loo sitiqinayo suudiga dharaareed haddii lagu dul saanyoodo sooftaanka maantii hadday daaqdo sabadiisa inuu soo dhacsado waa nin ragi suu ahaan jiree hadduu salabkii dhigay oo ka tegey soo cajaba maaha ilaah baa idinku dhaariyay ka warrama labo soomaaliyeed calanku waa siinad qaaliya waa midan wax lala simi karaa dunida saarayn siraad weeye noo baxahaya oo saacidaad mudane sumad weeye aad uumiyaha kula sinaateen waryaaya maradaa buluugga oo xidigta leh baan kula sinaanay maraykan iyo ruush iyo intii xoog leh ya soomaaliyeed calanku waa siinad qaaliye waa midan wax lala simi karaa dunida saarayne siraad weeye noo baxahaya oo saacidaad mudane sumad weeye aad uumiyaha kula sinaateene sahalla laguma keenin ee dadba u sheegay noloshii sababtii waxa u go'ay malyaan saayid boqolaale intii saajac loo dilay dartii suuro ma lahayne silic iyo dhib baa waxa u maray qaar u saafi ah seef bay waxay kaga hanteen cadowan siiyeene habeenkii la suray baa hurdada saani loo leedaye nin ilaah ku simay oo cimrigi siiyey inuu gaaro oo aan samuudlow xigsane dhinaci sii daayey oo siinad iyo sharaf u duday soo cajabo maaha haye waa ay xaragonaysaan soo farfadhidaan waxa maalin walba dhegtiinnu maqlayso ishiinnuna arkaysaa waa inta xun kamana dagaalamaysaan oo idinkaana u dhalinyara ah haye kuwii xoreeyey baa idin laaleekaa aqoon ma lahayn baabuur ma lahayn guryo ma lahayn lacag ma lahayn facebook ma lahayn youtube ma lahayn twitter ma lahayn haye haye jaamacada kama bixin haye haye seerabtaal ii sheega seerabtaal haye xubnaha sifeeye oo ka sugaysaan gadiga qaalaysaada kalena xeesheed balaas wuxuu shubaxsiiyo gu samaaday jaha oo naqsimay samada oo lacday arle sarac leh webiyaal gu samaaday jaha uu naqsimay sabada oo lacday arle sarac leh webiyaal sunsumi soodima ugbaada qumba sixina sulux iyo karuur sarara geedaysan sabeen uguba sogob iyo sange iyo sumal guruujaaya nimcadaas subxaan qaadirkay burada noo siiyey nin saboola oo taa u jira geedi subax guura oo aan u socon baan arkay soo cajaama xubnaha sifeeyoo ka sugaysaan gadiya qaale sarbay oo salaan iyo u dhigay saare iyo raare ku sifeeyey meesha la rabay sadaradeedii sacda kalena xeesheed balan socod subax siiyo soomaaliyeed waryaarahay soomaaliyeed taladu waa saadka nololeed waa sahay jiddeer lagu mariyo soo labaar badane waxna abwaanku saadaaliyaa saban wax diimoon maantana sasaankaan arkaa maaha saan rabaye sifihii qoonkii luud lagu halligay hawsan taagine iyaguba waxay sababsadeen tala ay seegeene salawaatulle nebigii bay sawrax geliyeen saanqaad xun baa lagu niciyo xaalan saxayn sidaas baa ilaah ugu rajmiyey madiyo suubaan sidoo kale kuwii saalax duray waa nebi saalex sawir xun lala maagi waxay sababsadeen dheehaday sibirta gooyeene nin kasta oo sareedada qubana aakhir wuu silix suureeya
موسى فرعون ووسق استري نبي موسى فرعون وتفر الكساقية وحي بصفري سيد وشقي شاكتي يساتر بانا قلت سنة بدل حقي قال كسولي واي وجهاد كي سعودي سيفتي دمي ويدي موسى الله سقي أو كفرقو دبستق لين أيوه صفكي راعي واتي بدوين لوغا ديغي ساني سهل ويغي uga gudbay oo saamaleelsaday cadowgiina markay soo galeen lagu saruurdaade sidaas baa kuwii samahana ah loo sadiyay soo jooga waa halis halkaas aan samaysan saddex jeer bal faatixada mara oo salliga qaada subax iyo bal yaasiin akhriya saacadiyo maalmo sallallahu dhaha oo ilaah saacabadu taaga saxariir ma huro oon hadday faralka seegaane sooma sekada dhiiba oo sadaqa meelaysta salaadana tukada ilku waa ina sugayaay waa laga socdaa duni haddaa salu malayseene wuxuu subso aakhiro qabrigu ma laha saaxiibe suugaanta iyo naxwaha ila garta oo say u tahay qaata suubana rasuulkii intuu suubin jiray yeela sirta iyo khiyaanada dulmiga saafi ka ahaada sabura oo sidii nebi ayuub samirka dheeraysta iimaanku waa sade xaq soor saamiga ogaada sinaan iyo midnimo aamina oo hawlu suxul duuba sidaas baa waxa lagu helaa samiya khayraade haddii kalese hee silic iyo darxumo baa inoo sara abwaanaan kaa dhex galo waxaynu xoogga saari doonaa maansooyinka iyo runtii wax fiican oo qiimo labaad noo soo jeedisay aad baad umahadsan tahay waxaan rajaynayaa inaanu si fiican u fahamnay fariintii gudbinaysay gabaygaasi waxaynu xoogga saari doonaa wixii dambe wixii la xiriira mawduucan suugaanta iyo doorka nabadda waxaan noo socdaa dadkaygaan la hadlayaa maansooyin ay ka mid yihiin laakiin waxaan rabaa bal taariikh ahaan soomaalidii xilligii suugaanta ay fariimaha iskugu gudbin jirtay ee warbaahinta aanay warbaahin kalina jirin ee fariimaha iyo wararka ay ku kala qaadan jirtay bal doorka si kooban suugaantaasi ay nabadda iyo colaadaha taagan u damin jirtay nabadna u abuuri jirtay inaad sheek ahaan nooga waranto haddii maanta la xisaabiyo intee dad la isugu diray iyo intee dad la isugu heshiisiyana waxa badan inta dadka la isku diray waad la socotaa silsiladii guba iyo tii ka horreysay oo iyadu ka dambeysay socotaan xilligii sayidka iyo wixii la isku oran jiray laba reer oo Soomaaliya baa islaayay markaasaa reer wuxuu u yeeray gabyaagoodii baa loo yeeray waxaa la yidhi maanta waa inaad guubaysaa reer hebel gabdho adaa gabay yaqaan meesha ka kac ninkaas wuxuu ahaa ilaahay ha u naxariistay cabdullaahi sultaan timacad waad xusuusataan gabaguu yidhi dugsi male qabyaaladii waxay dumiso mooyaane gabayadii cismaan yuusuf iyo afqalooc iyo kulli waxay ku wada salaysnaayeen siyaasad hoggaaminteed iyo nabad gabayada Soomaaliyeed oo nabadda ka hadlay gaar uga hadlana waxa ugu qira weyn oo ugu mug weyn cabdullaahi sultaan timacad inta aanu ka sheekahayo cabdullaahi sultaan gabaga markuu tiriyay lama dagaalamayna meesha waa lagu kala dareeray sababtoo wuxuu taabsiiyey wax runa dadkuna uu la hadlayaana waxay ahayn dad caqli wixii kasta oo la soo tiriyey oo Soomaaliya oo macno lahaa waxa ka maqan wax la yiraahdo fahan la'aan baa jira waxa ka maqan dhurka ereyga waxaan u bixiyey oo ah in la isfahansiiyo nuxurka maansada ku jira ama gabaga ku jira ama heesta ku jira ama geeraarka ku jira mucda hadal hadda walaalkii hadraawi oo kale buug weyn baa laga qoray dadkana looma macnayn
hadda anuu gabagaan tiriyey waxaan hubaa boqolkiiba konton inaan garanayo laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda waxaa la isku fahansiin karaa waxa idinku akhristaan anigu ma akhristo mana fiirsado anigu Facebook ma lihi YouTube ma galo Twitter ma lihi waxaasoo dhan waxaan isaga ilaaliyaa caradayda dhow iyo ciilkayga iska badan moogtahay nin qaran la'aan ahaa muddo ku soo jiray baan ahay waxaad kaga sheekaystaan oo dhegaystataana wax nasab dhegaysto maaha anigu waxaan idin oran lahaa waa laydinka faa'iidaa dad baa waxay u furteen inay ku caystamaan idinkuna cayda waa jeceshihiin khayrka iyo maanta jeceshihiin kilib oo siisaan sidaas Yurub ku degan yihiin oo dheer ku jifaan lacag ku helaan maxaa lacagtiina wasaqda ugu dhageysanaysaan baa ka deystaan wax khayrna waa laga helaa oo waa ku jira laakiin khayrkiisa yar anu marka wiilal baan u samaysto waxay dhahaan maandhooyin oo soo akhriya anigu daawan maya wax fiican kaliya ii sheeg inta xun hay sheegin waan gabiyaa waxaan ka baqaa marmar in wax iga dhacaan waxaan isaga xiray sababtoo ah maanta haddii xumaan hortaada lagu wado waxa dhici karta inaan walaalkii Cumar madax ku dhufto ilaahdo inaan caynkaasoo reer hebel oo najiskaaga waxaas maada moogtaa marka intaan dhihi lahaa bahalka anigu akhrisan mayo suugaantu marka waxay u baahan tahay wax la yiraahdo dhulka ereyga waxay u baahan tahay in dad loo helo loo kala saaro maxaa akademig ah oo cilmi ah oo mujtamacu ku cibro qaadan karaa maxaa khalad ah oo la calaamadiyaa inay khalad tahay waxa weeye akademikada dhaqanka baa arrintaa xaq u leh inay ballaariso wixii hore loo tiriyey dib u soo ururiso wixii khalad ah ay ummadda tusto inuu khalad yahay wixii cilmiyana oo faa'iido lehna la dhureeyo aniga Jabuuti Ismaaciil Cumar Geela iga casumay hadda ka hor wuxuu ii casumay gabagii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan inaan macnayo diiwaankii gabayada oo mujtamaca markaa nool uusan wax badan ka aqoon oo dad badan la soo mariyay oo la macnayn kari waayay waxaan macneeyay buug cusub oo hadda soo baxay sanadii dhawaa 959 tudcood oo aan markaa idina garanayn idina yaan oranay boqolkiiba 89 aan la garanayn marka suugaantu maskaxday korisaa qalbigay korisaa abwaanku kuma gabiyo islaaya noloshiina abwaan kuma gabiyo islaaya laakiin waa dhici kadhaa nin indhaha hortooda wax ka sameeyo oo caadifi oo hal abuur ah kuwaasaa u badan kuwa gabayada la booda tolaa ay reer hebelay mogta laakiin nin ilaah ka baqayo aakhiradiisa ogsoon mujtamacana noloshiisa wax ka fahansanay gabay laba reer isku diraya ma tiriyo maasadii ahayd dadkaygaan la hadlayaa ayaan rabaa inaad noo mariso kadibna aynu gallo qaybta dadweynaha waxay ahayd burburkii hadduu dhacay anigu fanka Soomaaliya waxaan iskaga tegey 85 iyo inaan wax sameeyo burburkii wuxuu igu dhacay anoo jooga Garowe 94 markay marayso oo aan waxba gabiyin astaghfirullah alazim 93 bishii 9aad oo aan waxba tirin baa waxa la isku xantay ninkan shube la yiraahdo maba gabi jirin gabayada dad baa tirin jiray oo ka soo xafidi jiray qaarna waxay yiraahdeen ma lacag baa la siin jiray oo gulwadu ahaayo maxamed siyaad baa intuu lacag siiyo wuxuu dirsan jiray adiga waxaas hadii sheekadaas mulaankaas u batay nin shakhsiyan ii qiim baa wuxuu yiri anaa idin ka hadlinayee isuga shube inta ma ahayn maansu ii soo qoray la yiraahdo indhow garad wuxuu yiri adaa naqshadaynta naxweynta higaada naanays ku lahaayoo nishaabi yaqaana shubow nagaf qaado Soomaaliland isteex intaan bari noobeer xumuun ninka goosan
intaan nuqloomay nudbeelka haraadka nugaal ku asqoobin intaan mudug niibtan naxaas ku fogaatay ka soo noqon waayin niyuugta banaadir nasaara ku aastay intaan nolosha tixdaasu nin hal abuura haddii nin hal abuuri wuxuu soo dhiibo waxaa khasab ah inuu wax ka tiriyo beenku idiin sheegi mayo markaan warqaddii akhriyey baan guri tegey waa gelin dambe oo maalintaasa habeenkaa waa soo jeeday maalintii dambena waa soo jeeday habeenkii dambena waa soo jeeday been idiin sheegi mayo garkaygaasu markaan guriga gelayay kulligii waa madoobaa subaxdii dambe markaan ka soo baxay oo miyirsadana inta badan waa cadday waxaan ku fakerayay maxaa ka hadasha maxaa ka gabayda dadku waxay rabaan tolaaye ree hebelow ree hebelaaye dadku waxay rabaan inta alle looga fogaado dadku waxay rabaan inta qarannimada iyo qorshaha iyo qaynuunka la diriirta halkaana hadda joogno iyo xaggaasaan markaa joogaba iyadaa laga rabo tolaayay 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 aniguna nin tolaay odhan kara haddaan leeyahay tolaayna waa inaan tolaay wanaagsan idhaahdo ama soomaaliyey ama reer hebelow in reer hebelow wanaag samay la yidhaahdo shareecadda islaamka ogol muxuu yidhi markaan galabta fekerayey oo caawa fekerayey oo maalintii dambe fekerayey baan waxaan dhammeeyey mawduucan ka hadli lahaa markaasaan fiidkaas waxaan ka hadlay mawduucii aan doortay bismillaah adduunyadu waa giraan ilaa iyo guulahay markii uu nagu galaday geediba geeddaa ku xigay markii heer laga gudbaba mid baa guluf loogu jiray dhibtaa garwadeenahay mar baan guuyo iyo maal qof soo geliyaaba jirin gacmaha maran laga sinaa gabraarsi haddii la tago mar baan guunc lagu ridiyo gamuun lagu toogto iyo fallaar lagu sii ganiyo abley lagu gowracdiyo la wadan gudiniyo warmee gacma intii lagu qabsado dhuxunka lagu goosan jiray adduunyadu waa giraan ilaa iyo guulahay markii uu nagu galaday geediba geeddaa ku xigay markii heer laga gudbaba mid baa guluf loogu jiray dhibtaa garwadeenahay macallinku dhibtuu ah bahaytaa waxaad ku garan hee mar baa dadku gebi ahaan guryo la'aan wada qabee ku noolaa god iyo kayn mar baan gogol dhinac aqoon gashina feeruhu lahayn mar baan gabal uhu yahay garbaha qofna saari jirin mar baan guuyo iyo maal mid soo geliyaaba jirin gacmaha maran laga sinaa gabraarsi haddii la tago mar baan gumc lagu ridiyo gamuun lagu toogto iyo faraar lagu sii ganiyo abley lagu gowracdiyo la wadan gudiniyo warmee gacma intii lagu qabsado dhuxunka lagu goosan jiray adduunyadu waa giraan markii heer laga gudbaba mid baa guluf loogu jiray dhibtaa garwadeenahay bahaytaa waxaa ku garan hee adeer haddii aan gaajo iman in geeduhu mira dhalaan miyay cidi garan lahay haddaan la gariirin dhaxan gabaad ma la dooni lah haddaan daal gabax la oran gaadiid ma la suubsan lah haddaan loo go'in harraa miyaan biyo goobi leh adduunyadu waa giraan markii heer laga gudbaba mid baa guluf loogu jiray dhibtaa garwadeenahay yah haddaan nahay geeskan bari kuwii gaarka u lahaa ama uu ku galladay ilaah ee buushona galabtii kastaba garaad u siyaada iyo gu soo korayay lahay haddaan nahay geeskan bari kuwii gaarka u lahaa ama uu ku galladay ilaah bahay gabalkeenni mee waay caqligeenni aaway dadkaygow garash haddaan nahay gobol ka mid ah geyiga aadmiga ku nool goor hore iyo waaye tegey halkii laga geedi galay asaageen saban gudbeen maxaa galabta ina dhigay maxaan isu gowracnaa inagu isu goominaa guhaadayna ku wacan adduunyadu waa giraan waayuhu waa gelin bacayn xilligu waa isgurahayaa bahay galabtiiyo xusuus gadaal ugu noqo xisaab diiwaanka galkiisa fura taariikhdan guurinina gadmadihii dhumay ka daya
intaan goob joogno iyo soo gaareen wuxuuna yidhi markaa isu geysataan dad yaa godobtiina qaba abaal yaa ina gashaday waa tan qaranka muroo guweel jira haysanay xornimadii yaa gambiyey waryaa calankiini gubay gobaad yaa ibaha jaray intuu gaaxdeedii dhamay gabaankii naga dhaqdhaqay gabaad baa lagu jiree gawaan marayayna tubay caawana aan gaabsanin godkii doonaya weli inaan guraan kuwa may garan kartaan baan maalintaa haye kuwa may garan kartaan bal geesaha fiiriyo golaha qaar baa fadhiya guurtida beesheena iyo guddiga sare nooga mid ah ilow siyaasiyiintii dadka isku diray ee isku dilay ee kala didiyey ee misna dulaalay baa reer waliba midkoodii soo watay oo maalintaa iyagaa inuu xukumay ma beentayba 93 yaa inuu xukumay odayaasheenii hore siyaasadda Soomaa yaa eel ka dhigay iyagaa dhigay idinkii baa raba dadkoodii baa wali raba haye bal geesaha fiiriyo golaha qaar baa fadhiya guurtida beesheena iyo guddiga sare nooga mid ah middaa googaala dhaha ka gudubooteeda kale adduunyadu waa giraan soo gaareen baa yidhi aniga waa lay sheegay soo gaareen baa yidhi gunbaa weel laga unkaa geed weyn baa la harsadaa god baa loo soo galaa gabdhaa guur laga garbaa gole lala tagaa ya ulahay baa laga baqaa nooluhu geerida u siman nafaan mawdkeedii gelin ma jiro ruux goyn karaa bahay taa waxaad ku garan galaala cadoon dhala ayaa laga guuray beri waxay wehel goobata oo waraabaa soo gurdamay iyadu gacal bay rabtee gaaroo u tagbaystiri isaguna gaajuu qabay cunug goosu isiri markay isa soo galeen waraabihii baa gadaal intuu gurasho ugu baxay go'aansaday inuu baxsado naftu waa malaya laxdu soo cuntay laba cagood buu ka day ilaa isagu waa indha qaba iyana indha male istarqanti ciirtanaysa ka gudubtada kale adduunyadu waa giraan soo gaareen baa yidhi waxaa geel lagu yaqiin inuu geyl iyo habeed sibraha ku guduudiye hadduu gaadada horiyo jeenyaha kaga dhigo ganuun gaddaa isagaa la yimi iyana googaala dhah ka gudubtada kale adduunyadu waa giraan soo gaareen baa yidhi goddaayee rubadu yaal ayuu soo galay libaax wuxuu cunay gabanadii markuu giigood dibiray ayuu geed darac la tegey intuu gamay buu dug yidhi hooyadu waa gacaliso ilmaha way garan ogtee waxay soo mira gurto arlada gaangaambisaba gadaal noqoshay ku timi gooray tahay maal weyn mise mayd gurafsan iyo unun go'an baa dhex yaal bartay gabanadu hurdeen waxay tiri coligeliyey gablamay gurigay ba'yey bahayaa ii gurmada go'aydii iyo qayladii gawdeedii iyo boohintii dhawaaqii gaararlada giddigii daayeeru yimi markii uu soo gabraday dhammaantiina soo gurmaday waxa iskala guray buxuur waa ninka u weyn waa buxuur markii hore waa gurxamay booddu geedaha ka lalay wuxuu ganay tuuryo dheer afkana laba taako gee saa uu yidhi noo garqaad ninkii cunay gabanadii miyuu iga gaannan yahay waxay tiri gacaliyo adaa ila geesiyoon ii gee buu yidhi markaa wuxuu soo goloftamada garmaamada soo hayaba isa soo kala guraba markuu geedkii dul yimi libaaxii gamasnaa gurdankiibuu ku kacay kolkuu guruxyada ku dayey garin argagixi ku dhacay mudduu garan waaya hadal wuxuuse yidhi goor dami gobtii bahashow u kuli malaha annagaa gafnee yarehe waad gamacsanayd gurboodka wixii ka haray miyaan kuu soo guraa adgowsaha wada dadhide wuxuu yidhi waa mid garagadaarsi inoo ku dhiga salaam buu gacanta lulay iyana googaala dhah ka gudubooteeda kale adduunyadu waa giraan soo gaareen baa yidhi hadday giirada riyaad intay goosmaan lumaan taabiga loo gaatayee intuu gaamuro cayilay markuu maantii gar wado wuxuu ku gubaabiyaa gaaskayga garoy ku daaq kolkii gabalku u dumay habeennimo soo gashana intuu geesaha dhugtuu go'aanka uga baxaa iyana googaala dhah ka gudubooteeda kale adduunyadu waa giraan soo gaareen baa yidhi haddii gubar waaqodo-o guuguule arlada ka dhaco 5 dirir godolka isxijaan markay geeduhu baxaan guuyada xoolaad dhalaan galaxa caanood la qubo barbaartuna gebi ahaan gabdhaha iyo wiilashuba habeenkii galanka dhexe gibliyo wala saqa tuntaan dayraan soo goodaniyo diraac gubanee kacdaa gadaal inay laaban tahay duq garashali waa og yahay wuxuu gurbiyaa wardiga iyana googaala dhaha ka gudubootada kale adduunyada waa giraan
وايوه وقلن بعين حلو واسقرها يا به قربتي وحصوص قدال قنقو حساب انتي قرمقاتي يا قراد حمي نوتا شين maxaa dhacay guuldariya gafiye ceebaan harayn gadoodkii muxuu nabaday maxaa gacal kala anbaday maxaa gaariyo ninkeed isgoobaan war iska hayn maxaa odag guuyo dhaqay u go'ay gaajiya haraad maxaa reer gaanaha gantoome gaban ka haray maxaa guur seegtay inan maxaa godob la iska galay maxaa gashi la iska dhacay maxaa guryo nabadaha la gubay galangasha maxaa gacal iyo dadbaha culaad loo kala guntee isgowracay sabab la'aan dagaalkii lama gartaan muxuu go'ashayna badan horta dagaalkii inuu dagaalamaynay oo inagu dagaalami maynay nala dagaalansiinayay lama gartaan ma yahay mise maaha yaa garanaya maxaa la isku dilay dhalinyaradiina jaamacadaha ku jidho iskuullada sare ku jidho marna ma daristeen maxaa la isku dilay dagaalkii lama gartaan muxuu go'ashayna badan intaas oo guuldarra ah bahdii soo gaartayey garaad ma siyaasateen ma garateen gobonnimo iyo gunnimo waxay kala yihiin soomaaloo gobol qura ah kuwii shanta gees ka dhigay gadaal ugu yeeranaya wanaag maynoo galaan dagaal u gardaasatoo gacmaha dhiigaysatee gumaad ma u ciil qabtaan dee haal dhah welina isleenaan rabnaa soo maha maalinta aad baa u rabteen maantana weli waa rabtaan haddaydnaan rabin midka idin dilaya oo idin qarxinaya oo idin doorinaya oo idin dulmaya idinkuma dhex jireen weliba intuu fagaaro isa soo taago idinma khudbayeen uma idnaan sacab kunteen daalimiintu dhashay oo khaa'imiinta oo na dulaala reer hebel kuma raacdeen maxaa beentay igu sheegaysaan yah nin weliba adeerkiis daalim ah oo tuug ah oo siyaasadda ku jira baa u khudbaya yidhaahda waxaa nala ka damcay waxaa naloo maleeyey waxaa naloo quuray intaa taa ku jidhaanna wallaahi bilaahi tallaahi waad hoogaysaan oo waa ba'aysaan oo waa jabaysaan oo inaynaa qaran helayn oo qiime helayn oo qurux helayn oo qadri helayn ma ka baxnaa ha ma dhabbaa ما هبطان يقول دارت إن دم إذا كتاي وإذا كذب سوما وحينو بلنا مدنيمو وحا مدنيمو لو هلا هرمر وحا لو هلا قرنيمو إك دولة نيمو وحا لو هلا مدنيمو gobonnimo isii laguma helo aan raggeed go'in waa loo gulfaa ama se waa loo gudaa abid waa geed ku baxa gaajada iyo dhiigga geesiga